munaasabad aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen waxgaradka aqoonyahanka maamulka degmada Yagoori iyo oday qaybdiid farax oo ka socday qurbajeega deegaanka oo maanta booqasho ku tagay degmadaasi ayaa maanta ka dhacday Yagoori iyadoo sidoo kalena ay ka soo qayb galeen waalidiinta ardayda dhigata dugsiga sare ee Yagoori waxaana halkaasi lagu lafagurayay sidii markaasi 7 xubnood oo ka tirsan jaaliyadda deegaanka iyo waliba qurbajeega deegaanku ay uga qayb qaadan lahaayeen habsami socodka dugsiga sare ee Yagoori kaasoo xilligan hadda lagu jiro ay bixiyaan kharashaadkiisa ilaa 7 xubnood oo ka mid ah qurbajooga oo suxul saaray sidee markaasi u sii wadi lahaayeen waxaana waalidiinta iyo waliba waxgaradka iyo maamulka degmada Yagoori ay ka codsadeen qurbajooga kale ee deegaanku inay ka qayb qaataan sidii ay horumarin lahaayeen deegaanka sida waxbarashada caafimaadka iyo biyaha taasoo dhammaanba waxgaradka ka soo qayb galay kula dardaarmeen jaaliyadda inaysan markaasi ka shaqayn waxyaabaha aan loo baahnayn isla markaana ay wixii ay gacan ka geysan karayaan ee horumarinta ay markaasi qabtaan waxaana guud ahaanba waxgaradka iyo waliba dadweynaha ka soo qayb galay ay aad u dhalileen jaaliyadda isla markaana ay sheegeen inay ku eegteen 7 xubnood oo kaliya halka loo baahnaa inay dhankooda qabtaan waxyaabaha looga baahan yahay ee horumarinta isla markaana ay cid kala lahayn iyagoo markaasi furta ku goday dadyoga markaasi arrimaha siyaasadda ku dhaxmila horumarinta deegaanka fasax yar gaaban oo ka soo noqonay teeramkii dugsiga furitaankiisii baynu saaka halka isugu nimo ay naga soo qayb galeen marka qolada dibadda ka timi iyo maamulka degmada ay naga soo qabanayeen waalidiinta baynu halka saaka isugu nimi iyo xaaladka jira inaynu iska wareersano dugsiga haddaan ka hormaro waxaynu furnay bishii Oktoobar sanadkii 2010 baynu furnay oo ardaydii u horeeyay ee gashay dugsiga loo ay u furnay taariikhda ilaa hadeerto ardayda dhiganaysay dad baana markaa kala baxayay oo hantida ardayda ay wax ku dhiganayso dad baa bixinayay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka abaalmariyo waayo waa wax tarday qofku uu la baxay hadduu qof uu bixiyo inuu wax ku barto oo waxbarashaduna waa shay qaali nolosha qofka kamid ah Ilaahay agtiisa abaal buu kaga helayaa wayna anfacaysaa marka ilaa muddadaasi iskuulku saas u furnaa muddo yar oo kooban hadda aynu fasax yar kala maqnayno teeramkii markii aan qaadnay ahayd saaka wixii ka bilaabmana duruusti baa dib bilaamaysa teeramkii labaad baa bilaabmaya sanadkan barashada hadii Ilaahay idmo oo aanu noqdeen dugsiyada gobolka ama ma garanaysa dalkeena dugsiyada la midkaas oo ahaan lahaa oo ma garanaysa inoogu jiri lahaa inaynu iska wareersano baa iyana ku jirto xog waraysi baa ku jira iyadana waxyaabaha isugu nimid marka dhowr waxa laga rabaa qolada halkan joogtay waxa laga rabaa dadaal iyo ma garanaysa inay ma garanaysa dadaalka halka si wadaan oo iyagu ay dadaalaan oo dadaalka si muujiyaan dadkan khantidooda ku bixi jireen waxaanu ka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka abaalmariyay hore u bixiyeen haddana waxaanu ka rajaynaynaa insha Allah ta'ala inay halkii ka sii wadaan dadaalkooda oo aan ma garanaysaa aanay hawshii meel dhexe istaagin oo meel dhexe ma garanaysaa aanay ku baabiin way juhdigaasi ardayda maalintii foomka lagu qaatay maanta foom 3 maraya hal sano marka uga haray muddadii ay ma garanaysaa kaga bixi lahayd iskuulka ba meel fiican bay marayaan oo meel fiican baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo gaarsiiyay iyo dadaalka dadka ay ku mahadsan yihiin marka ardaydana inay dadaalaan baa laga rabaa wixii la barayay ayna meel ka muujiyaan oo aanay ma garanaysaa dayicin dadkuna inay ku wada daydaano ay dadka kale ee ma garanaysaa meelaha lacagahooda kale ku bixinaya ama ma garanaysaa meelaha aan dani ku jirin ku bixinaya meelaha dantu ay ku jirto inay ku bixiyaan baa la rabaa oo dadku ay iskaashadaan sida ummadahu ay isu kaashadaan inay iskaashadaan baa dadka kale dibadaha joogana laga doonayaa dadkooda marka wax taraan haday xaq waxbarasho tahay haday xaq caafimaad tahay haday xaq ma garanaysaa biyo iyo macna wixii la xiriira tahay haday xaq nadaafadeed inay dadkooda wax la qabtaan ummad waliba marka ay meelaha qurbaha ku maan tahay iyada dadkeeda hadda dawladdu wuxuu qabataa ma jirtee dadka qurbaha ayaa ka qayb qaata oo qaybta weyn qaata oo iskaashi baa hawsha lagu wadaa marka intaana waxaan ku baraarujinaynaa inay dadku kale la leeyahay dadka tirada yar ee hawshan hadda ku soo haray inay dadka kale ee faraha badan ku eegaya ama garanaysa agtaagan inay la qaybsadaan aan sheegaya oo qolada ugu mahadnaqaya qolada wada iskuulka waxa la waa 7 nafar gabigoodiba aan shaqayn qaybtooda badan
dadku waxaan qaltaagayo qurba joogta reer iyo goori wax soo bixisa ama tajaacsiyaad wax soo bixisa ama qolyo badan wax soo bixisa waxba kama jiraan way soo xaniigtooda weyn gaadhay waa 7 oday oo 7 qoyska magaalada uu degana oo midba mataqaanaa soo xilqaanimo iyo odaynimo ku yimi ku keenay meesha oo uun isiri dadkiini wuxuu u dhimanayaa jahliyad buu u dhimanayaa jahliyadda soo ka saari kartaa unta la siiyo waxa ma tartay laakiin waxa wax tara aqoon la siiyo oo aqoonta qofkii dabadda ka faa'iideysto isagu ku doonto xoogsan oo ku xoogsado ku shaqeysto xirfadda bay inoo sameeyeen wayna mahadsanyihiin waan ugu ducaynaynaa todobada abaalkooda waxa weeye inuu abaalgudnaa inuu wax barana oo ilaahay markaa wax ka siiyo xasanaadka wax ku barteen waxaan wax ku barnay la yaqaalaade aynu arweena reer ku bishano waxa yaqaalaa inuu ilaahay markaa yaqaan xasanaad ka siiyo markay intaan iyo markay noolin baa u socoto baa loo baahay hadayna ma taqaana qaadno halka ka ciyaarno dubnado ka ciyaarno ma taqaana waxyaalo aan loo baahnayn danteena loomiya waqtiga loomiyaga lacag ka loomiyo ogaadana la yaro if ya akhirbo iyagana waynu khasaareen inaguna waa khasaareen annagu iskuulkana ma dhicino waaba ku tala galay oo markii horena noo fura ardadaan lacag ka qaadayna markii dambana waan ognahay inaan magaalada lacag lagu haysano sidii qaxoontiga tahay qofkii lacag halaala calood buu guura qofkii lacag halaala hargeysa u guura waxa waan ognahay oo dadkii uu masaakiinta ah bay isugu haran anagu marka iyagana inaanu ibno ma doonayno inaanu wax taraanu doonayno haddaanu tari karayno maxuma oo hadda odayaasha ku canaanayno wata laakiin waxaanu dabcan kontaati dheer la yeelaa anagu iskuuleedina iyo waxa dhigataan iyo waxa inaanu ku faragelino maxay dhigtaan iyo maxay qabtaan iyo xaq ma dhigtaan iduu buugiina loo soo diro qof walba wax dhigato noo sheego taali annadayna ma lihin qofkii wax dhiganaya dadkooda og wasaaradda tacliinta og ma oranayno anagu buugaagtiina maxaa dhigataan iyo inta idin faragelino ma oranayno laakiin idinkaanu wadaynaa qofkii caawimo haystay muddo loo sii daayay iskuul inuu isagu wax dhigto isna uusan isqaaray wixii wax tarana oo shaqsaa idinka idinta dadka lagu dhaadanayo bilaaadku xooluhu iska tagaanay qofka dambe ee la korinayaaba horta adduunyada wax ka anigu hadda badanka iyagu qoraxasa joogtaana waan soconaynaa ilmaha la korinaya wax tara marka dambe laakiin dadka waaweyn hadduu wax tariyo hadii kale ma soconaya idinka waxaan idinku waaninayaa ama cidi badeed haydii tibaado ama yeedin ama dadkiinu haydi ka bixiye qofkii iskuulka la keeno ay iska saareen cidi ka caawintana waalidkaana ha aade ha qasaaray waxaan ka baxayaa annagu intii aanu wadi kareenin waa wadno haddeerna waxaan ku soo tinay odayaashii iyo magaaladii qolada kale ee xagga jirtana yaan la xirinay iskuulka hal la wado waa oranaynaa waliba waa arkaynaa anagu inaan waxba aydan qornay iskuulada kale ee dalka jooga ilmaha kaliya la ascaano joogta ka ugu yar $15 laga qaato ka u yar weey iskuulada adduunyada bilaash oo la iska dhigtaa ma jiro laakiin iskuulada la caawiyaa jiro dibadda laga caawiyo anaga dadkii caawin lahaa 7 aan ku noqono jaamacad cisqa oo nagu raacda weey waa nala yaabaan hadayna la yaabin qaar shaqeeyo oo malyan dheer iyo qaar lacag leh baa joogan oo soo bilowday anu 12 sano aan joogiyo subaxta shaqo aaday uma jirnaaday ma hadaad qadso ma waa rado waan ku noqonay marka horta nimcaad haysataan inta tolku shilibada yariis soo dirayee iskuulka aad dhiganaysaan waa nimco hadaan joojino mooji inaad dhiganaysaan iyo inaad sii wadanaysaan oo reerihiin ka bixin karayaan warmahay marka qolada dibadda wixii aanu la hadli karo waa la hadlaynaa laakiin de intaas aanu ka joognaa waxa kale dad kale la qaadaan yihiin oo lacag ka bixiya oo diidaan ama khaatumaha siiyeen ama cid kale ha siiyeen ama meel kale ha ku dhigteen todobada nibba jaamacsiyaad hadda wixii ka soo diray waxa yar anigu libku sheegan meedo waxa yaraan lib maaha wax ka way baalboo baahayay inaanu qabno laakiin qaban kari weyne wax inta ka badan inta idinaha is qasaareenin waalidkiina qasaareenin anigu waxaan kaga baxayaa idinta Allah qofku qadoodo ku dhigta lacag la'aan ku dhigta isagoo waxay ku dhigta isagoo qaday ku dhigta anagu markaanu joognay dalka habeen lama oran iskuul dhigta cidina ma caawin waalidkayna nooma dhigin
idinka waalid ku tabcaya qofkii tacabkiisa qasaareeyo kii idinku tabcaya waalidka ahna wad qasaareynaysaa idina waa qasaaroobaysaa wax intarana waa qasaaraynaysaa intaasaan hadalka ku soo kaga baxaya waliba waxaan leenahay intii aanu kari karo waa sii wadayna hadaan jaacsi adka leeyahay hadaan weynaba wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam marka ugu horeysa dhamaan waxaan salaamayaa odayaasha ka yimid dibadda ee runtii mudan in lagu qiimeeyo maanta oo kale jawgan aadka iyo aadka u quruxda badan iyo madaxda iyo mas'uuliyiinta gobolka degmada gudoomiyaha degmada iyo maamulaha dugsiga sare iyo odayaasha kale ee maaragtay ka soo qayb galay xafladan aad iyo aad u ballaaran waxaan jecelahay insha Allah ta'ala marka ugu horeysa ilaahay subhanahu wa ta'ala ka abaal mariyo waxay jeclaadeen runtii inay dadkooda wax taraan dadka dibadda jira waa laba nooc dadna runtii waa dad u taagan inay dadkooda wax taraan ama dhismaha noqoto ama waxbarasho ha noqoto dadna waa dad xabad ku wada marka ugu horeysa waxaad ogaataan dadkan inay dad baahan yihiin runtii oo jecel waxtar iyo dhismo iyo nabad iyo nolol mid labaad waxa mahad iska leh ilaahay baa mahad iska leh subhanahu wa ta'ala lacagta ay ku bixinayeen xabadda inaanay socon oo ay socotay ku yaraa ee tirada yaraa ee iyagu jeclaaday awoodooda waxa la siiyo inay wax ka bixiyaan waxaan anigoo aan runtii aad iyo aad ugu mahadinaya ilaahay subhanahu wa ta'ala badhigan aad iyo aad u quruxda badan in la ogaado oo la arko maanta inay tahay maalin aad iyo aad u qiimo badan iyadoo la isugu yimid degmada Yagoori way mas'uuliyiinteedii iyo odayaasheedii dhammaan ay fadhiyaan iyo waalidiintii iyo waliba ardaydii dugsiga sare in lagu wada hadli doono insha Allah ta'ala waxa ay helaanna ay heli doonaan dad badan oo runtii ka noqon doono waxa ay ku shaqeeyaanna insha Allah ta'ala la heli doono oo dadkooda ay la qaybsan doonaan nimanka tirada yar ee maaragtay waxtarka habeen iyo maalin ugu taagan ilaahay dartii iyagana ilaahay baa ka abaal marinaya waxaan salaamayaa dadka qurba joogta maamulaha dugsiga gudoomiyaha degmada ardayda odayaasha intaasaan salaamayaa iyo dadka qurba joogta ilaahayna waxaan ugu mahadnaqaynaa inta ayna tareenin ilaahay xasanaadkeeda iyo abaalkeeda siiyo annagana waxbarasho wanaagsan ilaahay ciyaalka quluubta ugu hagaajiyo iyo waalidiintaba waxaan kale oo sheegayaa inta ay tareen in la mid ah ama in ka badan waa loo baahan yahay wax kastaba ha ahaatee qoliyaha kale ee dibadda waxaan ka codsanaynaa intooda qoladaas keentay in la mid ah ama in ka si fiican oo ay soo taraan dalkooda dadkooda iyo waxay haytay waxtar ay ka soo dhigaan waxaan salaamayaa dhammaan dadka meesha isku yimid qurba joogta odayaasha dhalinyarada maxay haytay dumarka dhammaan dadka meesha isugu yimid waan salaamayaa salaanka bacdi waxaan u mahadnaqayaa horta nimanka odayaasha ah ee dibadda jira ee iskuulka noo siiya fiiga nooga bixiya waan horta aad iyo aad ugu mahadnaqayaa way ku mahadsan yihiin waxaan yani aad iyo aad aan u jecelahay in ay intaa iyo inay nooga sii kordhiyaan ee aanay waxba yani naga dhimin baanu maxay ka codsanaynaa waayo waxa weeyaan meeshan waa tuulo dhaqaalo badan oo ay leedahay ma jirto dad fii iska bixin karayaan ma joogaan kuwa dugsiga hoose ee yani ama dugsiga dhexe fiigiisi baa lala liitaa kana yani fii ay ku kordhin karayaan oo ay siin karayaan ma jirto marka waxa weeyaan magaalada Yagoori la yiraahdaa dadka deegaanka u dhashay waxa weeyaan waxay haba yaraatay ee iskuulka ay fiiga ka bixiyaan mooyaan oo waliba dad yar oo kooban joogta ee la mida toddobada nin ee bixiya ku yani wareegtada ku bixiya fiiga iskuulkan ku bixiya dadka kale ee la mid ah maqan waxaan ugu baaqaynaa inay ku daydaan u soo qabtaan haddii aanay waxba na taraynin inaanay yani na dhibaataynin oo na carqaladaynin oo yani aanay naga gelin intaa carqalad aanay naga gelin oo aanay naga xumaynin toddobada nin ee naga bixinaya fiiga iskuulka
naga bixinaya ay naga aflagaadoon oo naga carqaladay ayaanu maxay tahay ka codsanayna haday waxna tarayaan ay waxna taraan oo isku waxtar u baahan yahay ay iyaga iska taagaan oo la mid noqdaan oo dad dhulkooda wax u qabanaya ay noqdaan baanu ka codsanayna waxa weeye ummaddu adeer kii yimaada iyo mid maqan ama Mareykan ha jiro ama Jarmal ha jiro ama Ingiriis ha jiro mid walba madax hadduu noo keeno madaxa waa ka gudoomaan waana u baahanay waana ku mahadsan laakiin waxaan doonaynaa meesha qaybtii jooga waxa jooga boqolaal baa jooga wixii waxaan garan waayay madeen iyo inay la xajacalaabeen baan u garan waayay ummadda dhan intaas leh toddoba nin iska xilqaato dhibteeda leedahay toddoba nin ilaahay ma xallin kara laakiin wax ma xallin kara oo weli aan bar shaqayn horta taa soo dir saddexdan xilqaameeyeen waa mahadsan kuwa kale odayaasha la joogay ayana la shaqaynayaan waa mahadsan laakiin iyadoo la taxadirayo waxaan doonayaa haddana in loo kordhiyo oo ay xilqaataan haddeer qaybtiid wuxuu yidhi idlu shuruud ku xidho wuxuu yidhi waxaad doonaysaa in la xidho ma doonano in la xidho in wax loo qabtaan doonayno oo kumbuyuutarna la siiyo oo cagaf la siiyo oo beere aanu ka shaqaysano oo awood ilaahay baa leh awood aad noo baahin doontid salaamaya dhammaan dadweynaha meesha isugu yimi eelaha waalidiin odayaal gudoomiye dhalinyaro waxaan kala salaamayaa jaaliyada dibadda iyo odayaasha jaaliyada ka mid yimi waxaan leeyahay jaaliyada dalkiinu wuxuu u baahan yahay inaad bal annaga haddaad taxawahna tirina bal idinku wax ka qabsado iska muujiya taas annaga wax tirno ah waxaan kaloo u sheegayaa waxa aad tartaan haddaydan waxba noogu kordhinayn kuwa kale kuwa annaga waxna tiraa dhaliilaya ama waxba ma qabsataano xanaga carqaladeynina kuwa wax noo qabtana waxaan leenahay dadaalka halkiina ka sii wada qalabka noo baana iyadoo baahideedu ilaahay baahideed dabooli karo qalabka noo baana wax kamid ah kombiyuutarro electric waxyaalaha fara badan caafimaadka bal idinku intiina wax qabata iyo intiina ku kordhi doontaan bal iskuulkan ku tuurtuursada markaad ka mid dhalisaan baad ka mid dhali doontaan wixii kale baahiyaa adalni yareeyna waxay kama tagin yidina ma wada oran intaas ku codsanayna dadka qurba joogta inay wax noo qabtaan adeer wax way noo qabteen si wadad yar oo tirsan waxa noo qabtay waxaan si ka codsanaynaa dhammaantood inay wax noo qabtaan wax muuqda oo wax noo qabta oo wax tara inay iskuulka iyo waxbarashada baan u qabtaan iyo degmadaba iyo deegaanka qoladan ninka wada iskuulkana waxaan ka codsanaynaa qoladan adeer iskuulka timi ee qurba joogta waxayna waxaan ka codsanaynaa inay sidaa ku socdaan oo ay noo wadaan ay ka fadhiisan ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay ilaahay iyagana qasaareenana qasaareen barnaamijkii noo bilowdeen ardada qaar baa waxay ka baxeen dugsiga dhexe 95 qaar baa ka baxay halka fadhiya 95 labadii kun qaar baa ka baxay dugsiga dhexe markii iskuulka la furay bay sidaa halkan u soo galeen oo wax uga barteen marka awood waxay u waayeen inay dhulka aadaan waxaan kaloo sheegayaa qolyahan qurba jooga had iyo jeeraale muranka badan iyo hawlaha badan Soomaaliya ku dhaliyo waxaan leeyahay qurba jooga deegaanka imaareen haddii aydan waxba na taranin wadagtiino inta dalka joogta ee deegaankan iyo inta dibadda joogta way isleegna iskuulada degmooyinka ama gobolada dalka Soomaaliya ma ka soo qaad iskuulada waxay leeyihiin kulleejooyin boordan leh waxaana u sameeyay dadka qurba joogta dibadda ayaa u sameeyay boordanka oo soo ururiya dadkooda tuulooyinka ka baxa iminka haddii yeelo iyo shuruuci ay ka baxo meel ay aadaan mal waxa laga yaabaa in awood u saamax weyday bartooda iska joogaan halka ay qaadka iyo ku ruugaan askaraha iyo waxyaalaha iyo dibtirnimo ka bilaabaan laakiin haddii sida dhulka kale boordan ay leeyihiin boordankaas ku xarana waxba baran lahaayeen inta aad dadka ka daysaa siyaasadahan iyo waxba dan idinka ma ahayn waxyaalaha arrimaha bulshada inaad naga caawiso dadka qaar baa ceelal u qaday dhulkoodii oo riigal ku taago ceelal u qaday qaar baa kulleejooyin u sameeyay iyo boordanada
qaar baa isbitaal loo dhisay qaar baa iskuul loo dhisay jaamacado tulooyin loo dhisaa jira xitaa iyo degmooyin loo dhisay haddii aydan intaa noo qabanayn naga daaya lugooyada iyo walaahowga halkiina ku noolaada annana aan halkayga ku noolaanay idina halka ilaahay ba idin geeya iskaga noolaado xasarada naga daaya annana halkan aan iskaga noolaanaynaa marka waxaan idin dardaarmayaa war waxbarashadu waa wax wanaagsan ha ka hadhina ilaa inta kolley waxaan mahad u soo jeedinayaa xaynta yar ama gruubka yar ee halkaas soo gaarsiiyey iskuulka waxaanu idin dardaaraynaa in aad wadaan ilaa iyo inta uun ardadaasi ama dadkaasi ay ka najaxayaan ee ka midha dhalayaan inaad wadaan baanu idinku ducaynaynaa idinkana ajar iyo xasanaad ilaa idinka siiyo idinkuna dardaarankaa qaata dhammeeya dadka u abaalguda waxooda wax aynu meel gaadhsinaan ka dhigno.